dhinaca kale waxaan idin haynaa warbixin qoraal ah oo uu saaka boggiisa Facebook uu ku baahiyey ilaahay caafimaad taama iyo cimri dheer ha siiye guddoomiyaheenii hore Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa waxa uu ku yiri fariin xanuun badan oo idinkaga timi xildhibaankeenii qiimaha badnaa ee Professor Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari. magacaygu buu yiri waa Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari. wax badan ayaan qaranka u shaqeeyay. farxadiina iyo u adeegidiina ayaan wax walba iga muhiimsanaa. waan jeclaa inaan idinla sii joogo ayuu yiri Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo qormadiisa sii wata. waxaa laga yaabaa buu yiri inaan ka kaco xanuunkan ama aan ku dhinto. way dhimashada waa mid qof walba ku xukuman yahay inuu maro allow khaatimo suuban. waan ogahay buu yiri in geeridu xaq tahay qof walbana camalkiisa uu ka horeeyo. qabriga wehel kale ma leh aan ka ahayn camalkaaga wanaagsan. xanuunkan inaan ka kacayo uma malayn doono. xanuuno badan ayaan la soo kulmay laakiin kan waxa uu iigu muuqdaa kaan idinkaga tagi lahaa qabrigana idinkaga hormari lahaa. laakiin fursad ayaan haystaa buu yiri taasoo ah mid aysan cid walba heli karin marka laga reebo qof ay ummadiisu aad u jecel yihiin sidayda oo kale. waan hubaa inaad jeceshihiin. fursadan aan qalbiga ku riixaya ayaa waxa aan doonayaa ducadiina inaad ducada aad igu kabtaan in ilaahay xanuunkan iga kiciyo cisbitaalkan emergency-ga aan ku jirana aan ka soo baxo. walaal maanta ducadaada ayaan u baahanahay ayuu yiri Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari guddoomiyaheenii hore ee Soomaaliya oo fariin u diray dadkiisa Soomaalida. waa xildhibaankii nooc cisbitaal gudihiis ku jira aan awoodin inuu idin soo hor fadhiisto. waa Arbaco Khamiis soo galayso si naxariis ku jirto ugu duceeya. maanta ayuu duco idinkaga baahan yahay siina faafi si ay dad kale oo tiro badan ugu soo duceeyaan oo ducadiisa u helo. caafimaad taama allaha siiye guddoomiyaheenii hore Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo ku xanuunsanaya dalka Turkiga kuna jira cisbitaalka. geeridiisa ayay saa ku baahiyeen baraha bulshada oo been abuura balse wiilkiisa ayaa ka hadlay oo yiri waa been ee dambe ayaa laga galay. daawade aan u ducayno dhammaantiin aan faataxada u marno. fadlan u ducee qaybta hoose comment ugu ducee in ilaahay caafimaad taama uu siiyo iyo waliba muuqaalkan si la gareeso u faafo duco badan u helo guddoomiyaheen. waa aniga maxaad laba galay hal hays media.